maanta oo bisha Maaris tahay 24 waxaan jeclahay oo doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan ahay musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya inaan u sharaxanahay. musharaxnimadaydu way daahday laakiin ilaahay baan maaragtay ka baryahayay intaa in uu ii fududeeyo. haddana wuu ii fududayn doonaa, waana noqon doonaa ilaahayna ku kalsoonahay inuu ducadayda aqbali doono. ilaahay baan ka baryayaa in uu ducadayda aqbalo, dalkaana uu madaxweyne iiga dhigo. sidaad ogtihiin dalka Soomaaliya waxaa ka jira dhibaato badan. diintii oo 10 firqa noqotay, qabiilkii oo dib loogu laabtay, waa hore waa laga soo tagay, hadda dib loogu laabtay, ayadoo oo had iyo jeer diinta iyo qabiilka waa siyaasadda loo adeegsado. siyaasaddii waxay noqotay mid lagu danaysto dadkana haba yaraatee aan loo danayn. sidaas darteed waxaan doonayaa ilaahay hadduu ii garto, waan aad iyo aad ayaan ugu rajo weynahay. waxaan ballan qaadayaana ilaahay dartii inaan dadka, diinta iyo dalkaba ugu shaqeeyo, inaan diinta midayno, inaan dadka qabiil ka saarno, inaan kulli Soomaali oo dhan ka dhigno dad walaala. innama almu'minuuna ikhwa ayaa ilaahay yiri. kulligiin dad muslimiin nahay, inaan mu'miniin noqono oo ilaahay u laabanno. dhibkaanoo dhan waxa noo geystay waxa weeye diintii ayaa la garab maray. diintii islaamka oo dhaqankeenna ku jirtay oo aanu ku soo dhaqmi jirnay ayaa bannaanka tashwiish looga soo furay. markaasna waxaa yimid khilaafkiina wuxuu noo keenay dhibaato iyo caro ilaahay. carada ilaahay si aan uga baxno waa inaan ilaahay kaashanaa oo ilaahay barinaa. laa xawla walaa quwata illaa billah. cid wax siin kartaa qof ma jirto ilaahay mooye. inaan ilaah bariga badinno, kulligii ilaahay u laabanno, kulligii toobadii ilaahay wuxuuna faray aanu fulino siday tahay u fulino. inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno oo ka dhiganno tiirdhexaadka xukunkayga iyo cadaaladdeeda inaan ka dhiganno. cadaaladda dadka sidaad ogtihiinba cadaaladdii waa laga tegey. kulligeenna waxaa loo baahan yahay haddaan cadaalad la helin waxba ma jiraan. dadku kulligiis wuxuu noqonayaa dad aan maaragtay qof wax celinayaa ma jiraan.